Libaanka koonfurta ismaamulka Wajeer Mudane Maxamed Cadow oo gaaray maanta magaalada Lihiley ee dhacda koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa indhayn ku sameynayay goobo ay ka socdaan dhismayaal mashaariic horumarineed iyo sidoo kale goobo mashaariic hore looga fuliyay oo ay ka mid tahay dugsiyada sare ee qaar ee ku yaala magaalada Lihiley. macallimiinta aan tababarnay mooyaane waxaa kaloo dhisaynay iskuuladeena kala duwan in caruurta ku wax baranaya geedaha hoostooda ku wax baranaya saacad iyo laba markay akhristaan ama wax bartaan qorraxda intay ku soo baxdo la kala sii daay sanad iyo laba iyo saddex meeshaas iyada ah saacad ama laba saacadood maalinkii wax baranay oo inta badan waqtigoodii uga lumayo iyagoon fasal haysanin iyo kuwa fasalada ku jira lagu kala gooyay mataqaanaa board yar oo labada dhinac kala maqlaya macallimiinta ku jiro waxa ay akhrinayaan cunuga uusan garanaynin inuu science baranayo iyo inuu taariikhda baranayo iyo inuu xisaab baranayo iyo inuu mataqaanaa baranayo maado kale iyaguba dhagadheeroobay waxba inaan kala saarno on facilitieskoodii u dhisno facilitieskaas aan caruurta u dhisaynay lacagtii ugu tirada badneed baan gelinayn hadda waxaan u soo jeesanay inaan iskuulla cusub aan furno annagoo diiradda saarayna waxbarashada gabdhaheena sharafta leh waxaan idinkugu bishaaraynaya in 8 iskuul aan sanadkan furnay oo secondary ah 8 Mudane Cadow ayaa shacabka magaalada Lihiley ugu baaqay inay nadaafadda magaaladaasi ay ku dadaalaan si bilicda magaalada ay sare u soo kacdo. Lihiley waxa kale oo weymid magaaladan waa magaalo qadiimi ah oo taariikhi ah oo nagu weyn aan jecelnahay dadkeeda aan jecelnahay marka waa inaan ka fikirnaa nadaafadeeda. magaaladan waxaan idin wadaa mashruuc ma aha waxaan idin wadaa hawl aan raba inaan wada qabanno aniga iyo idinka maanta laakiin wixii hadda ka dambeeya aan raba inaad idinka qabataan oo u istaagtaan haddii aan joogtaynana waxaan aaminsanahay magaaladan bilicdeeda iyo nadaafadeeda inay wanaagsanaan doonto caafimaadka ummadda deganna oo aad iyo aad u wanaagsanaan doono waxa weeyaan sabtida ugu dambaysa bil walba inaan isu nimaadno reer Lihiley ay soo baxaan nin walba gurigiisa uu ka soo tago magaalada meel walba uu qashin yaallo aan ka qaadno geedahaas aan waraabino amaanta beeri doono magaaladan aan dhirayno bilicdeeda iyo muuqaalkeedana aan wax ka bedelno insha Allah taala waxayna ugu baaqeen in dadaalkiisa uu laba jibaaro ninna waajibkiisa gutina magaala la waa maasanta baana لكن أنا حقول له وما سنت أقول له ولينا ما سومرين تارقها وجر ليلي ما سومرين سدح بروجكتي وهالمرة لقول له إنك كده ليلي أروحين نقول عصبا هرت تاني دوكم ما سنت هاي نمكن ما أنت ماشي المسؤول شكاها إلهي وصار السيئة قواي عاقبنا كتنبنا واتكربتا الله كسوء اليوم ونقول بقبنا أذان حكم كذا aad baanu u rabnay kulankaaga anigu insha Allah taala hal eray oo maalinkii aad nagu soo booqatay magaalada ololaha doorashada aad ku jirtay waxaan u malayn dadkii meesha ka hadlay baan ahaa waxaanu kuugu ducaynay inuu Ilaahay ku soo saaro waxaanuna ka codsanay inaad masaajida iyo diinta Ilaahay aad garab siiso Maxamed Cadow noo soo dhawaaw nin noo imaada oo la doortay oo nagu soo noqdo oo wax noo dhisa wali lama arkin Ilaahay kula garab gala Ilaahay boqorka haya ku barinaynaa haddana dugsiya waxaan la nin walba codsi geysanana barabaanay dugsiya dhaxda naga jooga oo wax noo dhamaashay tira Allah nahay dadkina tabar ma qaba Ilaahay kula garab gala waxaan rabnaa Lihiley way duugan tahay sida hadda aad u bilowday inaad kor ugu soo qaada si kastaba ha noqotee Mudane Maxamed Cadow ayaa ka mid ahay balmihiisa inuu xarumaha waxbarashada ama dugsiyada hoose dhexe iyo kuba sare
uu tayeyn doono sidoo kalena hadda waxaa jaamacadaha dalka ku yaala uu ka bixinayaa tiro macallimiin oo dhowr boqol oo arday gaarayaan kuwaas oo baranaya koorsada macallinimada. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Star, Koonfurta Ismaamulka Wajeer.